بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب اللقطة اللقطة دي بأبابها بعددي يو أبابها اللقطة هي اللقطة مركز سيدة صحدة ماشا وحلقة جيدة اللقطة لسكم خلاف سنة وبعددي هذه اللقطة اللي هذا ما يلتقط به يعني فعل بمعنى مفعول بالغ جيدة. طيب وحن ملينا يا بعددا وحيالها ددك مسلمين تا أي قالada kaga soocan yihiin ay kamid tahay nin malaayiin dollar helo ee dadkeedu ku raadiyo niman iimaan leh ma sameyn karo. ninka kale waxa weeyaan gaalka kaamira inay qabato mooyee inuu xoolo duur ka hadlay uu soo qaado ay ka maqan yahay yiraahdo wax laga sugaya ma aha lianahu wuxuu aaminsan yahay ama ajir uu ka raasanaha bajirin moogtahay. marka waxa dhumo labay u kala yihiin wax xayawaan ah iyo wax oo ah silca ah oo xayawaan aan ahno lacagtii laho wixii badarkii laho wixii dhan la. marka xayawaanka laba uu qaybsamaa sida noo imaa doonto ama hadduu musanifku wax ka sheego midka asiga iska dhumayo wayamtanicu min sigaari sibaac dugaagta yarna iska celi kara ama yani awoodiisa ama jirkiisa ama orodkiisa. marka nabiga kaas wuxuu tilmaan ugu dhiga geela markii la weydiiyey daalatul ibli maa laka walihaaba nabiga uu yiri macaha siqaa'uha wa macaha xidaa'uha tarca alghanam وترد الماء حتى يجدها صاحبها فراك قاذا ليلي ساس في أغلب البلدان ساسواي هدي قيل أو دمو واسداس مركا داد بدن وفقاد إمام الشافعي وكميدي هاي لوديا لمد دميري لمد حمار الوحشي كميدي عوشيا كميدي عوش وحلي تبرتي ده هبيرات لكن أرد كذا دير سهل قيبواي قيبتك لو حا عنوان لوغا ديغا غنمكي arigi markii la weydiiyay markaasuu nabigu yiri li akhiika aw laka aw lidhib macnaha waxa weeyaan ninka uu soo hormara iska leh waxa way kinaaya inaad qaadid waay sayna u dayacmin oo ayna qofan ahal ahayn ay gacanta u galin waa in la qaadaa oo meel lagu haayaa. waxa dheeraad ee markaa wixii kale oo dadka ku dhumay lacagta ugu horeyso ahkaamteeda يا هل كان لغو شيغيا مركاس سيدا او هدا امامك او كشيغي دونو marka luqadada waxa weeyaan ahkaamteeda dadka loo dhigay waa dad iimaan la waay nin xoolo cid la joogta aan jirin inta soo qaada dadkiisa ku raadiyo waasic diini buu u baahan yahay dad kale laga masuugay bal muslimiinta kuwada faasiqiinta oo amaanada lahayn yaan raja laga qabin. marka waa baabka ay tahay مسلمين إن سيجار اللوجو أجاده. طيب قال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. طيب مركا وحاليري إمامك وحوكب الله كعادته سند عن شيخه مالك وحديثك أو شاقي وحديث مختصر حديثك خالد بن الجهني في الصحيحين وحويان لعقتنا وكهضلي قيل وكهضلي أرقنا وكهضلي سيدي هوري أن أصول شيقنون أقوى هضلي مصنفك مركا قيب كميدا أيوكو كافتومي. طيب مركاسا وحاليري
وحوير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من اللقطة وكان من بين ما سأله إنه يراد بأهيد معناها لعقتي دونتا محالغا سمينا يو النبي عليه الصلاة والسلام ويديي نكاس أسيقا مركاسا وحاليري اعرف عفاصها أرتو حاد قرتا ويلك أي كجرتو قروا ليري ووكاءها حرق أفك وحرنا قرو ثم عرفها سنة أو حوى التنبيه بالبعض للدلالة على الكل يعني أوصافتا قيب كمدها لغا شيغي معناها لعقتا بورصدا أي كجرتو أما سونكا أي كجرتو أما سيدي هاد بددك وحي كو قاتان وحي كجرتو هرتو أغو وحا أفكا كغا حرنانا أغو maxaa ka sii muhiimsan nooceeda ma daraahima ma diinaara ma dollar ba ma shilin ba ayna ogow cadadkeeda ogow hadday diinaar iyo diraahim tahay wasankooda ogow kullu hada waa muhiim jiddan waay liannahu haddii la ogaaday darafkii iyo xerigii min baabi owlaa waxa ayaga cadadkooda ay tahay iyo nooca ay tahay lacagta إن لأقادنا ومهم جدا مركز التنبيه بالبعض على الكل واي ثم عرفها سنة أولاً يدهي بارنيسا وآد معناها فافنيسا هي فإن جاء صاحبها هدو يماذا في خلال تلك السنة هدو كي ماذا فذاك أسائس كلا أدقنا جزاك الله خيراً intaas amaanada aad haysay aad ku dhibtoota ilaahay baa ajir subxaanahu wa tacaala ku siina ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ma aha waxa wixii aad khasaarto waa dhib mooye dheefka ma faa'idin maaha adduunyada adduunye keligeed ma aakhiraa jirto wa ilaa fa sha'nuka bihaa adiga iskala wareeg baa layidhi sanad haddaad aad weydiisid yaa iskale waryaay lacag ka maqan tahay yaad leedahay meelaha laga weydiina iyo sida loo weydiina waa noo imaan doontaa marka waxaa leeyahay fashaanuka biha marka la leeyahay waxaa lagala jeedaa qofka markuusan u qaadin nina waxaa laga yaabaa inuu go'aansado inuu xoolaha ninkii lahay uu u haayo sanad hadday dhammaato xataa ammaano ahaan u haaya ninkaas haddii lacalla xataa ay ku dhunto ama ay ku baaba'do looma qabsanayo lianna yadahu yadu amaana waa لكن نك إذا تملك سنة يا دمادي واد ملكي سي واد استعماش بعد سنة يمدي بعد سنة نك يمد بدي كريسد ورسنة كي الوقف تأذى إمام ويسوح وأقول دافين ما حول دد أيليهن مددارا كسو وريكتكم بابا حولها اسمالك نك ويمادو wixii hore adiga aad ka isticmaashay bacda sana qaan kugu maqan waa ina soo celiso marka ninka waa u soo celinaysa waa siinay ilaa inaad amaano u haysay oo amaanadnimadii ku baabaday taas waa goonigeeda marka fasha'nuka biha law lam ya'ti waa adaa iska lahaanaysa وعن عمر نحو ذلك قال الشافعي وبهذا أقول حديث كان بأصل أهل هذا وحل لغتك سعر معتبر كأتنا أبوي طيب مركزور إمام الشافعي والبقر كالإبل لأنهما تردان المياه وإن تباعدت وتعيشان أكثر عيشهما بلا راع فليس له أن يعرض لواحد منهما هذا مصنف كوحيد حديث كي إبل كهرت كساب سنة إنه شيء فسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترعى الشجر وترد الماء فراك قاد ليري مرك حديث كانت آت شيكتت oo liira geela baadidiisa lama soo qaadayo waa loo daayinaa saaxiibkiisa ku soo maqan marka dambana waa helaya
طبعا marka saas tiraad kadib aad dhihi kartaa wal baqaru kal ibli marka ileen baqarkii ibilkii waa soo sheegtay liannahuma taridaan almiyaha biyaha bay ayagu u arooraan wain tabaacadad haba ka fogaato wataciishaani akthara ciishihimaa noloshooda badayeedna bilaa raacin waaye waa dhul waa saas ahaa jiro geela waa la iska sii daynaa looda waa la daynaa dhul daaq ah waaye marka geelayda habeenkii ay bixaysaa geela soo aruurinay loodana sidaas oo kale ayada caawa iska soo hoyanayso weyleedii waxeeda dhan waa jirta arrintaas ayada laakiin fii kulli buldaan ma ah dhul waxaa jira oo beero iyo maxaan ku iraahdaa iyo daaqba ka kooban in la ilaaliyo way noqonay dhul baa jiro oo dugaagtiisa aad u badan tahay oon saaca aan laga maqnaa karin laa geel wala lo marka bitabiicati albalad waay falaysa lahu lishaksi ma laha an yactarida liwaaxidi minhuma inuu mid ayaga ka mid a jidkooda uu yidhaahdo xoola baadi waa inuu yidhaahdo u banbaxa looma bannaano waalmaalu waashaatu laa tudfacaani aw laa tadfacaani can anfusihimaa maalka uu ula jeedo lacagtii iyo badarkii iyo wixii lamid ah iyo washaatu iyo ridi oo ariga lagala jeedo laa tadfacaani can anfusihimaa ay can sigaari sibaac waxa weeyaan waa wax baylah ah marka naftooda ma difaaci karaan fain wajadahaa fii mahlakatin meel oo bahgooye ah hadduu ka helo falahu akluhaa wa gurmuhaa idaa jaaa saaxibuhaa fain wajadahaa fii mahlakatin hadduu ka helo meel mahlaka ah oo una wadi karin inuu iska gowracdo cuno calaa annahaa dayn calayh falahu akluhaa wa gurmuhaa inuu u gudana wala idaa jaaa saaxibuhaa laakiin waxaa ka wanaagsaneed inuu yidhaahdo inuu qaado horta uu ilaaliyo sanadkiina uu weydiiyo saas waa liannahu carifaa sanaa la yiri inuu qaaduu leeyahy falahu akluhaa bacda sana inan idhaahdaa ku fiican tahay sidii hadalka imaamka yuusan isku khilaafin ayib fain wajadaha fii mahlakatin falahu akluhaa wa gurmuhaa bacda sanatin idaa jaaa saaxibuhaa yuu gurmi ku leeyahay gurmi waxaa weeye qaantii oo ninkii loo gudo waay ayib وحور إمام الشافعي على كل حال شروط أسواسو شيغني وقال فيما وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه والخيل والبغال والحمير كالبعير وحوله مزني وقال إمام الشافعي وحور فيما وضعه بخطه وحي خط كيسان كهلو كدجي لا أعلمه سمع منه إن لقى مغلين مؤقبور كتاب إمام الشافعي قري وتلاميذ أوسن أخرين إيان وحان كدحلي بوري مركا وحو كتاب كان ككوبين ياهي ما هو مسموع من الإمام الشافعي واتي أنهر أصول شيخنا إيا وما هو موجود أو ما وجد بخط يده وليقنا خط كيس وما رواه المزني عن الشافعي بواسطة تلاميذ فيما فاته انتبهوا إياه وحوري والخيل والبغال والحمير كالبعير بيلمده أو حويا وبعدذا أن للسوحر الجلين سيدي اللو قداينايو لأن كلها قوي وحيك سمنتها وأود بيوذليهن ممتنع من صغار السباع دواقت يريرن وإسكعلي كران أيوة بعيد الأثر في الأرض بعيد الأثر في الأرض معناه وحلوجي ذا ويفوان كران meel dheer bay gaari karaan wa mithluhaa adhabyu yaa lamid oo lirajal
dabiga oo orodka badanna waa la mid tabar weyn xoole ay isaga celisa ma leh laakiin rajal waayo bimacnaa kathiiratu alcadwa waalarnabuna waa la mid waataa'iru waa la mid waa libucdihi fi lardi yani libucdihi waa taa'irka iyo wamtinaacihi fi surcati ninkii oo tayr iska leh hadduu ka fakado oo hadhowtan u soo laabanayo loo baadi celi maayo liannahu waxaa lagu leeyahay waa libucdihi fi lardi kor buu u dheeraanaya waimtinaacihi fi surca waana degdegayaan intaba libucdihi intaasoo dhan waxay u taallaa arnabka iyo taa'irka labadaba waa iskula taalla taa'irka waxaa waaye libucdihi fi lardi arnabkana oo bakaylaha ana waa surcadii waa marka waa mas'alo oo ijtihaad u baahan sida ay tahay arnab iyo dhabi iyo maxaa lagu tirina ma arigaa la haleeshiinayaa oo lagala mid dhigayaa mase waa ka duwan yihiin waa mas'alo u baahan in la rogrogo imaamka halkaasu ay ka gashay keyrkiisuna waa ku khilaafi karaa xataa ibilka waxaa jirta dhul qaarkiis oo libaaxiisa badan yahay dugaagtiisa badan yahay oo geeli hal saac uusan ku noolaa karin yaa jirto marka alawdaac takhtalif bixasabi maa yaraahu dadka culammada wakhtigaas joogo siday u qiimeeyeen waa dhulka isku amni ma aha iskuna dugaag ma aha qaala wayaakulu luqatata alghaniyu waalfaqiiru waman taxilu lahu sadaqatu wa tuxaramu calayhi marka waxaa la yidhi tan waxay farac ka tahay ninkii haddii intuu wax weydiiye sanadkii ay dhammaato oo markaa kadib uu qofkii waayo ninkaas waa iska cuni karaa ama khani ha noqdo ama faqiir ha noqdo bacda tacriifihaa sanatan waa cuni karaa iyo ninkay sadaqada xaaraam ka eed xataa waa cuni karaa lianna waa xoolo la milkinaya sadaqa ma ah marka taa wuxuu u daliilayaa a'imo qaarkoodaa qabaan luqatada bacda tacriifihaa waxaa cuni kara ninkii faqiir ah ninkii qali ahoo ilaahay hodan ka dhigay oo aan u baahnayn waa iska hayna ila alabad abu xaniifa sidaas qabo imaamu shaafici nebiga wuxuu leeyahy kalama qaadin ninkii soo qabto hadduu sanad uu macnaha baadi raadiyo ou baadidii ou macnaha tacriifiyo nebigu wuxuu ihi fasha'nuka biha ma dhihin in kunta faqiiran ma raacsinin marka labadii waa isku mid buu yiri wahada kalaam jamiil waman taxilu lahu sadaqatu wa taxrumu calayhina waa u bannaan tahay inuu cuno buuri hadduu ninka soo qabtay banu haashim uu yahay la dhihi maayo baadida waxay la xugum tahay sadaqaadkii reer ahlulbeytka xaaraamka ee ma cuni kartiin lama dhahayo liannahu sadaqaadkana waa baab dawaalka ama xoolaha dhumayna waa baab kale lidaliil xoolahan hadda aad sanad markii aad dadkeeda ku raadisid aad waysa aad cuntid ninka hadduu yimaado waad guday sadaqa ma la gudi jirin qad amara rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ubaya bna kacbin wuxuu amray wahuwa min aysari ahli lmadiinati aw ka aysarihim ubay bni kacbin sayidu lmuslimiin nebiga markuu baadi soo helay waxaa layidhi sanad kadib waa iska cuni kartaa baa layidhi asigana wuxuu ka mid ahay min aysari ahli lmadiina dadka ahlu madiina kuwa ugu tanaadsan dadka ama ayagoo kala waa wajada ubayun wuxuu helay suratan you helay fiiha 80 diinaaran sura boorsawa you helay fiiha 80 diinaaran wuxuu amray an yaakulahaa waqad amara rasuulu llaahi ubaya bna kacbin an yaakulaha ilaahay rasuulkiisuu baadid anaan keenay sanadhanaa weydiinay maxaa ii tala ah halil iska cun وأن عليا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد دينارا فأمره أن يعرفه دينار وحواه
hal diinaaru dahab ah sanad weydii baa la yidhi falam yactarif wax oo arrinta gartay lama helin fa amarahu biaklihi inuu iska cunow nebiga amray waana cali dadkii sadaqada xaaraamka ahayd falamaa jaaa saaxibuhu markuu yimiday amarahu wuxuu u amray bidafcihi ilayhi markii sanadkii la dhaafay cali cunay kadib baa ninkii yimid diinaara meeshaan iiga dhumay noociisa saasi ayaa arkay nebigu wuxuu ri caliyow diinaarkii aad weydiinayso iska cun ku lahay bay u eg tahay iska bixi wa caliyun miman taxrumu calayhi sadaqatu nin ay sakada xaaraam ka tahay buu ka mid yahay liannahu min saliilati bani haashim min saliilati bani haashim waay saliiba bimacnaa min sulbi bani haashim yuu ka mid yahay ayib taa waa la gartay calaa kulli xaal waxa weeyaan sida hadda oo nusuustaas oo aahaarta uu musanifka sheegay iyo daahiru xadiidi rasuul ninkii wax baadi helo jidkii loogu talagalayna markaa u faafiyo markii la waayo waa cuni karaa ayan kaana nawcuhu qofkaas wuxuu ahaadabo haddii saaxiibkiisa u yimaadana waa loo gudaa qaala shaaficiyu walaa uxibu liaxadin tarka luqatatin wajadahaa wuxuu iri aniga ma jecli qof inuu baadi arko ou isaga taga ma jecli idaa kaana amiinan calayha hadduu is og yahay nin naftiisa aamin ku ah lacagaad heshay nin lacag jecelna waa tahay khiyaanadaadana way badan tahay markaas iska dhaaf laakiin ninkii awood ulaa dhahi kara wallaahi qof kale hadday qabato anaa kaga fiican oo xoolahan jidkii sharciga ugu talagalay marsiinaya haddaad leedahay adaa u habboon qaad buu leeyahay tan waxay tusinaysaa ana alimaam ashaafici yaraa istixbaaba akhdi luqata istixbaab inay tahay taas waxay khilaafsan tahay la yidhi maa saraxa bihi fi kitaabi alummi ou yidhi walaa yajuusu liaxadin tarku luqatati saasuu yidhi marka qola waxay leeyihin laba qowlo imaamu shaafici leeya tarjiix u baahan waay qolo kale waxay leeyihiin maya cala ikhtilaafi xaalayni alagu kala dejinaa markay sunno tahay waa markii dadka ammaanada ay ku badan yihiin meesha oo ninkan hadduu ka tago nin kaloo ammaano le gacantiisa ay ku dhexayso yustaxabu lahu meesha uu yidhi waa waajibne waa meel ay ku badan tahay dadka oo faasiqiinta oo khaa'iniinta ah oo is yidhaahda ninkan adiga wax kaaroon lama arko marka labada qowl sidaasaa loo kala bixinaya dadaa ayaa sidaas yidhi calaa kulli xaal imaamu shaafici laba qowl uu leeyahay midna waa mustaxab midna waa waajib saasuu qaba ayib fayucarifuhaa sanatan calى abwaabi اlmasaajidi wاlaswaaqi wa mawaadici alcaammati markaasuu iri hadda waan sheegnay shuruuda iyada in la qaada inay tahay macrifo kaamil horta in laga leeyahay oo weelka ay ku jirto xeriga ay ku xiran tahay cadadkeeda wasankeeda maxaan ku iraahdaa awsaaftii oo la qoro in markhaati uu u sameeyo inuu sanad maxaan ku iraahdaa faafiyo shuruudii bay ahayd marka min ashuruud waxaa ku mid ah intee lagu faafinayaa laleeyahay baadiyaan haya fii cahdi alimaami ashaafici waa kana fayucarifuhaa sanatan calaa abwaabi almasaajidi masaajida baabkeeda uu leeyahay war lacagaan haya ayay ka maqan tahay iyo walaswaaqi aswaaqda meesha laga galo iyo wa mawaadici alcaama dadka meesha isugu yimaadaan wayakuunu akharu tacriifihina waxay noqotaa fi ljumcati alatii asaabaha fiiha jumcadii uu macnaha xoolahaas helay waay fayacrifu cifaasahaa wa wikaa'ahaa wa cadadahaa wa wasnahaa wa xilyatahaa wayaktubuhaa wa yushhidu calayha intaas shuruudii waay cifaas
وظرفك أما ويلك وكاء وحرقي وعددها إمي سوا بقول درهم 100 الله بقول 100 وزنها درهم كلا بقول كان درهم ميقاي وزن كودياي وحليتها إيو معناها نوع وحكو قران أيضا ويكتبها مركز صفات كاسوا قرا ويشهد عليها نفتيس آمن إسقامها مركز له وربادي إن هلي مرخاتي كنقضو صفات كذا نسيداس أي تايساس له فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة وسوشيال مركز اللقطة سدح الله قيبنا ما له قيمة تتعلق بها نفوس البشر إن يكون دولار أو كلمان تكرنتي ما إلو باي وارادنا مد الله بعد ما كان تافها حقيرا أو كلا حويان حوغا شريمادي هل خبز ومالي هل ننع أو كلا حتى نقطة تافه حقير وأسكا قادة كراتاس إيو وحشي قيمة له لكن لا تتبعه نفس صاحبه وحقي ملئ لكن بدنا قفك هذا يكون تديب أوسن أفيرينين مثلا $1 إلى $2 أو كلا هذا جاب كذا كجرت دوايسي ليه ما يصير إن جاري راعي دور مساجد كي أن كنت كذا ورحافتي أنجوج مدرس وحيرة وحين قيمة عليه لكن نفط بني آدم كمرة أحسنه مداس ما لبادي ولا متى مسمى ولما ذو إسكو خلافين لكن تنهر النفط أي كتعلق ولا فافنيا مدة تافه سيدي هل حبضوا التمر أي وحي لمدة وحوي أي الله مباه مركا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في حياته تظنوا شاهبونك يمدي أو بعد موته فهو غريم وننكو قاميسان تهيوان إن كان استهلكها هدي أو أسرع عنه حولي نك إلى هدو يماذا داد نوشاهي نولكو يماذا نواسيني هداد إمتدنا تريك هذا لغا بحنا وسواء قليل اللغطة وكثيرها نوائجهن طبعا كثيرها وقليلها مما تتعلق به نفوس البشر الربائن ليلة فيقول مركو وفافنا وحول هذا من ذهبت له دنانير ولي الدنانير كالنتي إن كانت دنانير أو من ذهبت له دراهم إن كانت دراهم أو من ذهبت له كذا وكذا ولا يصفها وحيتها مشيغا وقل درهم أو نوع أو تاسع أو مزن كذا انت أسكدوير هذا ننعلها يعني أسكله ولا يصفها فيتنازع في صفتها ننكركو قبسكره أو يقول جملة بولادا إن في يدي لقطة أو ولادا باديان هايا دراهم من هايبو مركا وحاليري هذا ماشا أو لغفا فينيو مساجد أسواق دو حوا في عمرنا الشافعي ما أنت ويكدوانته وصح ماشي حولي آدكاه وكفى فيني وحاجرتو براها بلشدة إذا عوينك جرائدك كل القلينية ما أنت ويكسر لنتاي مالنت خرو وهذا أركت داد بقلال سنة لواي سنة يبقى أنت داد براها بلشدة أدقلسو فلان أو عدة صور شيء أو مالنكاس لواي يا يقان هديلي هذا بقلال كوكسو كل سو حريريس مركا أسلوبتي اختلفت وحي هوران لغا تغي ماي waxa soo kordhayna waa lagu ziyaadinaya saas waa marka intaas aad isticmaashid oo wax ku yimaada aad waysid kadib waad iska isticmaali kartaa sanadkii haduu dhamaado marka baadidii waa sidaas qof kasta iimaankiisa inuu ku xiran tahay qof kasta waa inuu ogaada فإن كان موليا عليه بسفه أو صغر ضمها القاضي إلى وليه وفعل فيها ما يفعل الملتقط وإن كان
الآخذ أو الواجد للضالة موليا عليه مد أسيغ تولينا يهدويا بسفه عقل يرى أو صغر يران ضمها القاضي وحو الضما إلى وليه نك أسيغ عنتكها يباذ أديبه وفعل وليقاس فيها في الضالة ما يفعل الملتقد وحين هو رؤوسه الشيء أرورتادو يريارو لعق بورسا وتاكوتمت أما نوالا أو كلا مركا قاضي مركي وقعنت كله وحوله نكان يا ولي دad kan yaa haayo ninkan waalan cidaas oo ka tirsan waligiisa loo dhiba le baadidan oo ninka soo qaaday waxaad ka dhigtaa adigoo kale inaad soo qaaday meeshii tacliimaadkii aan hore u soo sheegnay aad u maraysaa tacriif aan noqoto ayada hal ogaado wahaakada markii la waayo sana kadib tifliga yaa lahaanay ama majnuunka yaa lahaanay waa sidaa weeyaan والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.